waxaa meel wanaagsan maraya isla mar ahaantaasina heer gabagaba ku dhow jidkan laamiga ah ee isku xidha gobolada Doolo iyo Qoraxay oo waqti xaadirkan heer gabagaba ku dhow maraya haddaba mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Wardheer ee gobolkan Doolo oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Cabdulaahi Deeqa Xasan uu hogaaminaya ayaa soo kormeeray isla mar ahaantaasina u kurgalay habsamo socodka jidka laamiga ah ee ka socda bartamaha magaalada Wardheer kaasoo waqti xaadirkan meel wanaagsan maraya haddaba gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Cabdulaahi Deeqa Xasan iyo gudoomiyaha degmada Wardheer mudane Meelud Duraan Cabdulaahi oo warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa sheegay in habsamo socodka jidka laamiga ah ee isku xidha gobolada Qoraxay iyo Doolo uu waqti xaadirkan meel wanaagsan marayo iyagoona sheegay in muddo 6 bilood lagu soo gabagabeyn doono sida ay sheegeen waxaan maanta soo kormeernay wadada laamiga ee laga dhisay magaalada Wardheer gudaheeda wadadan kulli runtii meel fiican bay maanta maraysaa muddo dhowr bilood oo hore ah ayaanu dadaalkeeda bilownay mashruucan wuxuu ka mid yahay wadadii Wardheer iyo Qabridaar isku xirisay uu ka mid yahay mashruuc gaar ah maaha maadaama wadada ka mid yahay marka qorshe waxaan qaadanay in baadiyaha shaqada iyadoo sideeda ay uga socoto in ahmiyad gaar la siiyo magaalada gudaheeda in laamiga la soo gaarsiiyo ujeedada ugu weyn aan kala hayn laba qodob bay ahayd qodobkooda waxa weeye bilicda magaalada in kor loo qaado maadaama xarunta gobolka tahay meeshu siyaadaba haday meel dhulkan ciid guduudka ay tahay hadii aysan laami lahayn guri kasta laga dhiso wax muuqaal iyo bilic oo sameeynaya ma jiro waa ninka buuda macwiis xirto kala weyn marka taana oo ka duulinaysa bilicda magaalada kor loogu qaado in magaaladan gudaheeda laamiga laga bilaabo ayaan waqti badan gelinay alxamdulillah rabbil caalamiin waqti iyo doorasi fikir buu ahaa maanta laakiin jiidan joognaa shaqada si fiican bay u socotaa inteedii badnayd waxa weeye meel fiican bay maraysaa insha Allah taala waqti kooban oo ilaa dhowr biloodahana sida ay noo sheegan tiimka shaqada wada oo kusoo gabagabeyn doonaan hadii la yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo kaalin ka qaadatay in qorshahan noo hirgalo oo xaruntii gobolka ay laamigeedu si dardar leh oo u dhaqaaqa runtii bulshada magaalada Wardheer guud ahaanteeda u mahadcelinaynaa waxaan ugu mahadcelinaynaa dadaaladii iyo hindisiga aan sameynay sida buuxday noola qaateen oo guryahoodii ay u furteen iyagoo wax magdhaw ah aan helin runtii shacabkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalada si guud gobolka Doolo baahiyaha ugu muhiimsan ka jira waxa kamid ah waa dhinaca wadooyinka weey dadaalo badan baa socda dadaaladaasna waa la sii jabaari doona hadii la yiraahdo waa laami wixii shaqo fudud ma ah laakiin ilaa 6 bilood hadda inay ku soo gabagabeyn doonaan bay tiimku noo sheegeen wayna siday u sheegeen way noqon kartaa caqabadana way ku iman karaan oo way ka badnaan kartaa laakiin hadda waxay noo sheegeen adigu ilaa 6 bilood wadadaas inay ku dhameystirmi doonto wixii ka dambeeya la isticmaali doono in caqabada imaan doonaan oo ay waqtigaas ka badatana qariibsan mayna hadii la yiraahdo baka farintii ugu dambeysay waxa weeye sidaan hore u sheegay inaan shacabka magaalada Wardheer uga mahadcelino kaalintii ay ka qaateen aragtidii iyo fikirkii aan hogaamin ahaan waxa weeye soo abuurnay oo ahayd wadada in xagga magaalada mudnaanta la siiyo si degdeg ah loo bilaabo kaalin fiican bay bulshadu ka qaadatay dhammaan guryaha la furtay adarkiisa hal qof oo magdhow qaatay ma jiro mar labaad waa mahadcelinaa inta wadadaas inoo dhamaanayso oo sida loogu talagalay inoo gaareysana waxaan shacabku soo jeedinayaa halka dadaalkoodii inay ka sii laba jabaaraan qof walba kaalintiisa qaato waa mas'uuliyad wadareed dadka shaqada haya la garab istaago la shaqeeyo la soo dhaweeyo intaas ku soo gabagabeynay aad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan saaka kormeer isku dhafa ku sameeynay geed socodka wadada dhexmarta magaalada Wardheer taasoon si bil toddobaadlaana shir uga galno si toddobaadlaana isku weydiino progresskeedu meeshu marayo maxaa iska dhimay maxaa caqabado taagan maadaama ay ka duwan tahay wadadii magaalada banaankeeda ama baadiyaha maraysay waxaan rajaynaynaa in la dedejiyo dabagalkeedana inaan xoojino waxaan ugu kalifay waxa weeye waa magaalo caasimada xarun gobol ah waxay keensatay dadkii shacabka ah oo si fiican uga qayb qaatay horumarkeeda si iska ana guryahoodii u dumsaday tabashooyinkoodii cabashooyinka soo noqonaya si aysan u dhicin khaladaad oo markasta ay ku cabanayeen wadadan hadaan guriga dibino way nagu raagaysaa muddo dheer bay soconaysaa taasa kaliftay si joogto ah inaan u dabagalno waayo magaalada bartamihii ama bilicda meesha ahayd bay saameyn ku yeelatay kadib taas baa keentay in si toddobaadla loo qiimeeyo progresska waddi iyo wax say u socotay iyo qaabka u socoto alxamdulillah meel fiican bay maraysaa saaka tiimka markaan indhaynta wadnay waxay noo sheegeen in hal lakab kadib ay ku bilaabi doonaan daamurka sidoo kalena ay soo bilaabi doonaan drainage-ka isku garab wadayaan drainage-ka iyo daamurka si dadkii bulshada marka wadadana uga faa'iideysato bilicda magaalada ay soo kordhiso dadkiina dhismihii guryahooda
ganacsigii baa wajeedaha ahaa oo dadkii ganacsatada ahaa in wadadan la dhameystiro mooyee wajahadii lama dhisi karo intaasoo kiiloomitir oo magaalada dhexdeedii ayba maanta iska guryo wada qabya oo foolxumadooda hadda iska muuqato dadkiina dhismihii waxay ku xidhan tahay wadadan oo la dedejiyo taas baan ugu kaliftay inaan toddobaadlana shir uga qaadano si toddobaadla aan loo kormeero si toddobaadla aan loo kortaagnaado shaqada socotay oo dhan aan ka warhayno waxaan rajaynaynaa si degdeg ah shirkadda dadaalkaana in annaguna ku wadno wixii caqabadana deegaan la jira ama eera ama federaalka la jira inaan deegaanka markasta la wadaagno dhan caqabadaas taagan waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wadadan ku dhameeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh farinteeda ugu dambeysay waxa weeye waxaan kula dardaarmayaa bulshada taageerada ay siinayaan qoladan wadada aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin inay taageeradaas sii wadaan taageeradaas iyo guryahan ay duunsadeen iyo ilaalinta nidaamka ay ilaalinayaan inay sidaa u sii ilaaliyaan taasoo noo saamaxaysa inay iyaduna wadadu durba dhamaato idinkuna aad fursadeena u heshaan aad iyo aad bayna bulshada magaalada Wardheer ku dhaqan u mahadsan yihiin dhammaan inta ka qayb qaadatay guryahoodiina duumsatay ilaa haddana u dul qaadanaysa inay wadadan dhamaystirto taageero badan siinaysa taageeradaasina waxay naga caawinaysaa inaan wadada dedejino annaga ka dawlad ahaan inaan mas'uuliyadda qaadanada wadadaas si degdeg ah noo dhaamo bulshaduna inay mas'uuliyadooda qaataan ilaalinta nidaamka wadada ku socoto aad iyo aad baa loo mahadsan yahay salaam alaykum sida ay sheegeen Bashiir Cabbaas Ali warbaahinta deegaanka Soomaalida SR TV magaalada Wardheer ee gobolka Doolo